Kooxda Barcelona ayaa xasuuq aan loo meeldayin u geysatay kooxda Barcelona kulan ka dhacay Santiago Bernabeu, ciyaar ay inta badan ay gacanta ku hayeen. Kooxda Barcelona ayaa waxay xasuuq ugu geysatay kooxda Real Madrid iyadoo aan inaba buugga naxariista u fiirin kooxda Real Madrid. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xasuuq iyo bahdilaad iskugu dartay kooxda Real Madrid oo ku booqatay garoonkeeda Santiago Bernabeu. Garoonkan weyn ee aadka looga baqay ee boqortooyada Spain iyo kooxda Yurub ayay kooxda Barcelona caawa dhan kastaba kubadda ugu baastay, dhan kastana kaga ciyaartay, waxayna u xambaarisay guuldaradii ugu weyneed in dhoweyd soo gaadha garoonkooda Santiago Bernabeu. Xavi Hernandez ayaa wuxuu soo nooleeyay kooxdii Barcelona taasoo ku jirtay kaalmaha ugu hooseysa ahayna koox waliba ku tumato. Kooxdiisa ayaa hadeer u tartami karaysa horyaalka La Ligaha, kaasoo ay ilaa iyo dhammaadka kula tartami doonaan kooxda ay caawa xasuuqa u geysteen ee Real Madrid. Gool uu dhaliyay ciyaaryahankii Arsenal ka soo tegay, kaasoo si bilaasha ugu tegay kooxda Arsenal una wareegay kooxda Barcelona, ayaa caawa waxa uu shidnaa calankiisa, kaasoo uu ka dhigay kooxda Real Madrid wax aan jirin oo kala daadsan, isagoo ku qaadaya waa buuba badangala saas iskugu laba rogay. Waxayna ahayd ciyaartiisii koobaad ee Clasico uu 2 gool uu ku dhaliyay garoonka weyn ee laga boqo ee Santiago Bernabeu. Sidoo kale Araujo ayaa isaguna gool dhashaday. Laacibka kale ee ka soo tegay kooxda Man City, Torres, ayaa ugu shubay kooxda Real Madrid isaguna. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa caawa waxaa dhexdeedii adduunka ugu khatarsanayd markay ka ciyaarayaan kooxaha waaweyn ee Yurub sida Modric iyo Toni Kroos ayaa caawa la waayay, kuwaasoo garoonka hurdo looga diray, lagana soo qaaday duqiyaal in badan lagu soo xamaalay kubaddana soo qaatay qaybtoodii. Waxaana caawa lagu yiri soo barta kubadda waad ilowdeene. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku haysay waana gaadeene, waxa naga maqan libaaxayagii mashiinka goolasha waa Karim Benzema, kaasoo dhaawac uga maqnaa kooxdan Real Madrid iyo kulankan weyn ee caawa Clasico ahaa. Garoonkeedan cusub ee caawa ee boqolaalka milyan ee euro lagu dhisay ay caawa la arkayay gabdho aad u qurqurux badan ee ku dhex ooyaya garoonkan weyn ee aadka loo soo sharaxay ee Santiago. Kale caawa kooxda Real Madrid waxaa burbursaday oo sida duufaanada ugu soconayay waa Ousmane Dembele, kaasoo caawa daafacyadoodu ay qaban kar waayeen isagoo orod kaga tegayay. Waxaana caawa ugu darnaa ragga uu ka xaroonayay waa Nacho, kaasoo uu orod kaga tegayay isagoo duufaan ahaa caawa soo gala, wuxuuna kubad uu xagga midig ka soo jabiyay madaxa u saaray Aubameyang, isaguna ku hubsaday shabaqa. Ahaa goolkiisii 6aad ee La Ligaha iyo intuu ugu wareegay sida bilaashka bishii January uga baxay kooxda Arsenal. Kale ayay kooxda Barcelona waxay weerar cir iyo dhul ah ku soo qaacday kooxda Real Madrid, kaasoo kubad koorna u baxday. Mar kale uu Ousmane Dembele madaxa u saaray Araujo, wuxuuna ka dulkacay David Alba, wuxuuna dhinaca bidix ka dhigay goolkiibaha Real Madrid Courtois. Real Madrid ayaa waxay xaqiiqsatay inay caawa la kulantay guul darro xanuun badan, isna dhiibtay gelin hore. Laakiin Carlos Ancelotti ayaa wuxuu isku dayay inuu ciyaarta dhanka kale u rogo, balse beddelka uu sameeyay Carlos Ancelotti wax weyn uma tarin. Daqiiqo gudahooda ayaa kooxda Real Madrid looga dhaliyay 2 gool, waxaana 2 daqiiqo oo kaliya markay ciyaartu socotay shabaqa ugu shubay ciyaaryahanka ka soo tegay Man City ee dhawaana ku soo biiray kooxda Barcelona, Torres. Daqiiqadii 51 ayaa waxaa shabaqa mar afraad ugu shubay ciyaaryahankan caawa xidiga ka ahaa garoonkan Santiago ee Aubameyang. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa caawa sida daadka waxay ugu socotay garoonkan weyn ee Santiago Bernabeu, kaasoo ay buux dhaafiyeen taageerayaasha labada kooxood. Kooxda Real Madrid ayaa caawa waxay garoonkan ka baxday iyadoo aad u murugaysan, maadaama caawa kulankii weynaa ee Clasico lagu dhex jiiday garoonkooda Santiago Bernabeu. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku haysay ma'aarsade wuxuu ku jiraa uurka hooyadii, maadaama 2 kulan oo hore Nou Camp lagu soo dubtay, waxayna iska reebtay ceebtii hore.
soo yaraysay farqiga u dhexeeya iyaga iyo Real Madrid kaasoo ahaa 15 dhibcood kuna soo koobtay 12 dhibcood oo kaliya. Kulankan ayaa ah kulanka adduunka loogu jecel yahay kuna daawashada badan caalamka, waana kulanka loo yaqaano Clasico. Ciyaartan ayaa ahayd ciyaar aad u xiiso iyo xamaasad badan, dambeyntiina kooxda Real Madrid afka ciida loo daray.